بسم الله ربي يسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كسر هذا معك اقرأ Institute of Technology. مقعي هو أستاذ أبشر محمد. maantay waxaan rabaa inaan la wadaago dhalinta Soomaaliyeed meel walba ay joogaan 10 xirfadood oo wax badan noloshooda iyo habdhaqankoodii iyo sidoo kale dhaqaalahoodiiba ay wax ka bedeli doono haddii ay u qaataan sida saxda ah ayna u bartaan sida saxda ah ee looga talagalay ay marka insha Allah taala noloshoodii iyo dakhligoodii iyo wax badan kusoo kordhin doono ayaan rabaa inaan la wadaago waan hadiyad uga dhigo waliba sanadka cusub marka maalmaha quraan naga xigaan 2023 insha Allah taala marka maanta waxaan rabaa fursadaasi dahabiga ah oo ay tahay marka fursadaha ugu weyn ugana qaalisan sanadkani dhamaanaya 2022 sidoo kalena fursadaha ugu fiican oo aad marka isbedel aad ku samayn karto noloshaada 2023 ayaan insha Allah taala halkaan ku la wadaagi doonaa maanta insha Allah taala marka insha Allah taala maanta waxaan idin la wadaagi doonaa 10 xirfadood oo looga baahan yahay qofka nool educated person ka ah ama dhalinta Soomaaliyeed oo fursadan dahabiga khadka ama internetka ama tiknoolajiyada casriga ah maanta aan haysano marka la rabo inay ka faa'iideystaan aqoontoodana kor u qaadaan sidoo kale dakhligooda iyo marka income-ka soo galaan sidoo kale ay kor u qaadi karaan ayaan rabaa inaan la wadaago ama hadiyad aan uga dhigo si sanadka cusub ay uga faa'iideystaan xirfadahaasina ay u bartaan maahan xirfadaha aan sheegayno wax inta badan jaamacadaha laga dhigo ama meelaha qaar ama maahan balse way fudud yihiin siyaabo fara badan ayaad u baran kartaa marka barashadoodana mid walba kama badanayso 2 bilood ama 3 bilood marka laga reebo hal marka xirfad marka maxay yihiin 10kaasi xirfadood marka ugu horeysa aan ku bilowno xirfadda ugu horeyso laga rabo ardayga ama dhalinta Soomaaliyeed sanadka soo socda inay isku hubeeyaan oo ay bartaan si fiican oo waliba ay u bartaan waa computer skills sida loo isticmaalo computerka sida wada ogsoonahay computerka barashadiisu waxay noqotay waxyaabaha ugu saameynta badan waxyaabaha ugu qaalisan la barto maanta ayay noqotay sababtoo ah haddaadan computer aqoonin wax walbo xirfad walbo aad leedahay ma samayn karto awoodna uma lihid marka inaad samayso xirfadaasi inaad dadka u soo gudbiso haddii aad rabto tusaale video editing waxaad u baahan tahay computer haddii aad rabto photoshop inaad isticmaasho waxaad u baahan tahay computer haddii aad rabto marka web designing inaad noqoto waxaad u baahan tahay computer marka iyo wixii la mid ah marka computerka barashadiisu waa shayga ugu qaalisan maanta nolosheena qodobka koowaad weeyaan qodobka labaad xirfadda labaad aad isku hubayn karto sanada 2023 waxay tahay barashada graphic design sida graphic design-ka barashadiisa sida haday tahay photoshop-ka haddii ay tahay illustrator-ka haddii ay tahay marka waxyaabaha la midka ah Adobe InDesign-ka way badan yihiin marka xirfadahaasi waa xirfadaha ugu qaalisan maanta weeyaan marka tusaale haddii aan ka soo qaadno local wadankeena hooyo ee Soomaali haddii aan ka soo qaadno halkii loogu aad u baahato shirkadaha sameeya adeegyadaasi haddii aad u tagto maxay ka qaadaan ugu yaraan $10 ayaa laga qaadaa halkii loogu weeyaan oo kaliya marka haddii aad barato xirfadii oo dhan adiga aad barato ka waran aad ku barato waliba $10 ama wax u dhow aad ku barato marka inta waxaa laga yaabaa inaad bilaash aad ku baran karto aad ku hesho internetka haddii aad gasho YouTube aad gasho marka qofku waxay ku xiran tahay marka dadaalkiisa iyo ka go'naanshihiisa ayay ku xiran tahay wax sidaas marka waqti badan u baahan maahan sidoo kale wax adagna maahan oo aan la baran karin maahan marka xirfadda saddexaad waxay tahay barashada web designing-ka sida loo barto web designing sida aad u samayn lahayd website noocyaal kala duwan leh haddii ay tahay e-commerce haddii ay tahay blogging wax lagu barto sida website-ka iqra Institute of Technology marka dhammaan qaybahaasi waxay ka mid yihiin marka xirfadaha aad baran karto fursad aad u heli karto waliba
adigoo jooga gurigaaga ama goobtaada shaqo ama adigoo tagaya xarumaha ee lagu barto xirfadahaasi marka sida wada ogsoonahay web designing-ka waa xirfadaha ugu qaalisan ee maanta caalamka la isticmaalo weeyaan marka qof walbana ayaa u baahan maanta la joogo website inuu yeesho qofkaasi hadduu yahay qof wax fahmaya qof caalamka la socda qof teknolojiyada la socda hadduu yahay marka website sida loo dhiso waa shaqooyinka ugu badan ee lacagta badanna laga sameeyo weeyaan haddii ay noqoto international iyo haddii ay noqoto local intuba waxaa jira shirkado fara badan oo sameeya marka ayaa jira websiteyadaasi oo kala duwan haddii ay tahay local iyo haddii ay tahay marka internationalba sidoo kalena lacag fiican ayaad ka sameynay halkii website waxaa laga yaabaa 500 ilaa iyo 1000 inta udhexaysa inaad ku samayso waa haddii aad barato marka xirfadii aad barato weeyaan aad yeelato aad waqtigaa geliso adigu aad u xurto marka waqti aad siiso ka go-naansho iyo dhab inay ka tahayna aad marka go-aansan tahay weeyaan marka qodobka afraad waxaa lagu leeyahay oo qofka inuu aqoon u leeyahay laga rabo waxa weeyaan xirfadda lagu magacaabo planning-ka xirfadda qorsheyntaasi oo aanu la jeedno qorsheynta mashaariicda sida loo qorsheeyo mashaariicda waa inaad taqaana weeyaan marka xirfaddaasi labada qaybood ay u qaybsanto ama ugu waaweyn operational planning iyo technical planning waa inaad u taqaanaa xirfadahaasi si fiican aad u taqaanaa marka xirfaddaasi waa xirfadda afraad weeyaan marka xirfadda shanaad oo aan rabo inaan la wadaago dhammaan dhalinta Soomaaliyeed ama ummadda Soomaaliyeed qof walba oo videokani uu soo gaaro uu ka faa'iideysto marka aan rabo waxa weeyaan waa xirfadda lagu magacaabo leadership-ka waa xirfadda shanaad leadership weeyaan marka xirfadda hogaaminta inaad leedahay xirfad hogaamineed inaad leedahay shakhsiyad hogaamineed inaad leedahay weeyaan marka hogaamintaasi marka maahan inaad noqoto qof hay-ad ka shaqeeya ama qof dowladda ka dhex shaqeeya hay-adaheeda kala duwan ama madaxweyne aad noqoto ra-iisul wasaare aad noqoto ama aad noqoto wax baarlamaan oo keliya maahan hogaamintu marka hogaamintu boqolaal nooc ayay leedahay marka inaad leedahay xirfaddaasi hogaamineed aad u abuuran tahay ama aad u samaysan tahay weeyaan marka maahan marka xirfaddaasi xirfad oo loo dhashto oo dadka hogaamiyaalka ay u dhashtaan maahan micnaheedu boqolkiiba 2 ayay ka yihiin dadka hibada u leh oo u dhashta alle uu siiyey marka inta kale waxa weeyaan marka waa xirfad adiga aad baranayso adiga aad isbarayso adiga aad ka dhabaynayso weeyaan marka inaad barato adigu marka xirfaddaasi waa xirfad aad iyo aad muhiim u ah sababtoo ah bulsho ayaad ku dhex jirta bulsho ayaa haldoor u tahay bulsho ayaad kasoo dhex muuqanaysa marka waa inaad leedahay marka bulshadaasi sidii aad ula dhaqmi lahayd beri ayaad noqoni qof mas-uul ah beri dembe ayaad noqoni marka mar walba waa inaad lahaataa xirfaddaasi hogaaminta oo weliba sida ugu fiican aad u barataa marka xirfadda lixaad waxa weeyaan aan isla wadaagayno maanta decision making go-aan qaadashada xirfadda go-aan qaadashada waa inaad leedahay maadaama aanu soo sheegnay inaad u baahan tahay inaad noqoto hogaamiye xirfadeeda haddii aad noqoto qof hogaamiye ah oo leadership ah waxaad u baahan tahay inaad go-aamo aad qaadan karto mararka qaar bulsho ayaad hogaaminaysa dad badan ayaa indhahooda marka ku soo jiidanayo dad badan ayaa wax kula wadaagayo dad badan ayaa wax idin dhex marayaan intaas oo dhan waxaa la rabaa marka inaad go-aan aad qaadan karto qofka ragga ah waa midka go-aanka qaata weeyaan maahan marka go-aankaasi mar walba inaad dhahdo aniga ayaa go-aankayga iskale maahan balse waxay ku xiran tahay xaaladaha iyo go-aanada aad qaadanayso siday u kala culeys badan yihiin siday u kala hooseeyaan siday u kala muhiimsan yihiin ayay ku xiran tahay marka go-aan qaadashadu marka waa xirfad la barto oo aad iyo aad muhiim u ah weeyaan marka iyaduna sidoo kale xirfadda toddobaad aan isla wadaagayno maanta waxay tahay marka xirfadda fagaara ka hadalka public speaking xirfadda lagu magacaabo xirfadda fagaara ka hadalka waa inaad barataa xirfadda fagaara ka hadalka sababtoo ah mar un ayaad u baahan doontaa xirfaddaasi inaad marka aad isticmaasho noloshaada sababtoo ah waxaa laga yaabaa mar ayaa laga yaabaa adigoo meel fadhiya oo mas-uula in lagu dhaho kaale soo istaag dadkani wax u sheeg dadkani waxda in lagu dhaho ayaa laga yaabaa ama waxaa laga yaabaa inaad mas-uulba aad noqoto hogaamiye aad noqoto qofka hogaamiyaha ahna waxaa u baahan yahay xirfaddaasi si zaa'id ayuu ugu baahan yahay sababtoo ah qofka hogaamiye ah waa qofka dadka haga la hadla jiheeya dhiirigeliya intaasi weeyaan marka si aad u samayso waxyaabahaas oo dhan waxaad u baahan tahay xirfaddaasi si fiican inaad u taqaano oo public speaking-ka fagaara ka hadalka
toban qof haddii aad hor istaagdo marka haddii aad marka wejigaaga hoos aadinayso oo aad dhulka aad fiirinayso ama dhidid kaa qubanayo marka qof wax uma sheegi kartid marka marka xirfadda ugu muhiimsan way qof ayaa la weydiiyey lahaa marka haddii lagu dhihi lahaa dhammaan xirfadaha aad leedahay waa laga qaadi oo hal habal la soo har haddii lagu dhihi lahaa maxaad dooran lahayd ayaa qof la weydiiyey markaas ayuu ku jawaabay marka waxaan dooran lahaa inaan la soo haro xirfadda lagu magacaabo fagaarka hadalka ama public speakingka marka muhiimadaas ay leedahay xirfaddaasi iyaduna sidoo kale xirfadda sideedaad aan isla wadaagayno maanta waxay tahay iyaduna sidoo kale waa xirfadda barashada luuqadaha inaad barato luuqadaha waa xirfadaha ugu muhiimsan ayay ka mid tahay maanta luuqadahaasi waanu la jeedno dabcan waa luuqadda carabiga luuqadda diinteena ay ku dhisan tahay oo qof walba oo muslima laga rabo inuu barto sidoo kale xirfadda labaad ee luuqadaha waa luuqadda englishka weeyaan oo maanta adduunka internationalka ah marka gaal iyo muslim intuba marka ay iskula hadlaan oo communicationkooda marka ka dhacayo weeyaan marka labadani luuqadood inay barato muhiim ayay aad kugu tahay marka qof walba oo raba marka xirfadahani inuu barto marka si fudud haddii uu go-aan uu qaato jadwal u samaysto oo gool u dhigto oo hadaf u yeesho si fiican muddo kooban uu ka baran karaa marka xirfadahaasi haddii uu barto hal sano ama wax ka yar hataa haddii uu dadaalo qofku waa uu ku baran karaa marka labadaasi xirfadood marka waa inaad leedahay labadaasi luuqadood inaad taqaano weeyaan marka xirfadda sagaalaad waxa weeyaan iyaduna sidoo kale waa xirfadda video editingka sida video editing loo sameeyo sida muuqaalada loo sameeyo muuqaaladaasi sameyntoodii iyaguna waxay ka mid yihiin waa xirfadaha ugu weyn maanta ee la isticmaalo international ahaan iyo local ahaan intuba lacag fiicana laga sameeyo halkii video waxaa laga yaaba oo aad samayso ayaa waxaa laga yaabaa inaad kaasoo gasho lacag fiican marka waa haddii aad adigu taqaana marka xirfaddii barashadeeda aad soo barato waqti soo geliso oo aad si fiican aad usoo barato marka xirfadahani waa xirfadaha ugu muhiimsan waqtigaani maalinta aanu joogno qofka uu ka samayn karo lacag ka samayn karo dakhligiisa wax kusoo kordhin karo value u yeeli karo weeyaan marka sidoo kale xirfadda ugu dambeysa aan isla wadaagayno maanta waxay tahay barashada digital marketingka barashadiisu weeyaan xirfadaha loo garanayo digital marketingka haddii ay tahay affiliate marketing haddii ay tahay email marketing haddii ay tahay dropshipping haddii ay tahay e-commerce haddii ay tahay waxyaabaha lamidka marka xirfadahaasi maanta waa xirfadaha iyaguna ugu muhiimsan oo caalamka laga isticmaalo weeyaan marka laga hadlayo qaabka online-ka weliba adigoo jooga gurigaaga ama shaqadaadana boqolal faa'iido aad ka samayn karto waa haddii aad barato si fiican aad u barato weeyaan marka insha allahu tacaala maanta waxaan rabaa 10 xirfadood inaan la wadaago dhalinta Soomaaliyeed meel walba ay joogaan oo aan uga dhigo weliba hadiyad aan uga dhigo marka ugu dambeyn gabagabadii waxaan rabaa inaan la wadaago dhalinta Soomaaliyeed fursadaasi oo marka ah in Machadka Iqra Institute of Technology uu idin hayo dhammaan xirfadahani aanu soo sheegnay oo uu idin hayo oo aad ka helaysaan weliba iyadoo online ah iyo iyadoo offline ah aad ka helayso marka waxaanu leenahay website-kaasi ay ku jiraan casharada aan ka hadlayno hadda badidoodii koorsooyinkaasi waxay ku jiraan website-ka adigoo jooga dunida daafeeda meelaha meesha aad joogto ayaad ka baran kartaa xirfadahaasi oo si heer sare loo soo diyaariyey oo waaqiga la jaan qaadaya marka u badan weliba qaybta digital marketingka qaybta website-yada dhisidooda qaybta noocyadaasi marka haddii kalena waxaan leenahay qayb oo xarun la imaada ayaan leenahay oo marka si offline casharadaasi dhammaantood loogu qaato marka waxaan idin leeyahay ka faa'iidaysta fursadahani qaaliga marka ka xurow insha allahu tacaala inaad qof le aad u haato mar walba shaqaale aad u haato shaqale aad raadiso ka xurow oo adiga noqo mid naftiisa u shaqaysta ama asiga loo shaqeeyo noqo insha allahu tacaala ka faa'iidayso cumrigaaga ka faa'iidayso waqtigaaga ka faa'iidayso dhalinyaronimadaadi ka faa'iidayso dhammaantood waa lagu weydiin doonaa maalinta aakhir marka insha allahu tacaala meel wanaagsan uga faa'iidayso ayaan ku leeyahay naftaada ku horumari marka waxaan idin leeyahay soo dhawaada wassalaamu calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakaatu